مصطفى وحن يرتا دتك إنا ديد يعني إسبرتيد كل نشباب أو رجل جبوتي هي تهاي إن بعد كديد مركا إنا واحد يهايسو وأنا قراءة يوم صدا ماركتي إن عاو النص ديارسي قيبها كليات كجيرتو سوغانتا هدي سود لحيتا إن ومحاكم إذا مركا إن مرعي ومستوبح معلم بان هاي كاي وزارة تعليمتا مرة كديد بوق بان قري ورسنا لدهو ورسنا بوقاسي بوقاس صدق قيد بان كلا قيبي صدق قيبود قيب قبل علم بلداو بريزان قاس كلا سنة مسلمان عمر قيلي وحن قبل عليي وحن يريبا حق جدال بقشي قدونا قيب وسويال كيني أو سمديه باديها يدلشوين كي سمديه باشا يدلشوين كي ميجا وكواجه يدلشوين كي ميلاديكا قيبنا وهيسو كجاجة فرنسيس إنجليز صومالي عربية يو وحن سويان صومالي كسو بيريي labadii cumar marka la isku daro cumar daahir abdi iyo cumar macallin allah u naxariistay marka la isku daro mushakalkii milaanshkii waxay noqotay oo ku soo biiray suugaan Soomaaliyeed qaybaha u kala baxaan suugaanteedu waa inta hadaan kuugu horeeyo suugaantan qaadanayna caawna jibeysan baa ciwaankeyga waa jacayl bay ka hadlaysaa saddex qaafiyad ka kooban tahay labadii qaafiyad cumar daahir abdi dhigay iyo tidcantii cumar macallin allah u naxariistay taadi ka kooban tahay hadaan kuugu aqriyo in suugaanta jibeysan naftan canabay ku jibeysan نمعي عوجين قارسن نحل يعرج كارسن نعودي عاشق اللجنة يرسن نبض يعانو جقليسن ناولين عرابة جرماتسن عصك ينور كان جلقسن نور يعلان كي يجرميسن ندي عقل كان جهيسن نصب علسكو جديسن نبض يعانو جقليسن ناولين عرابة جرماتسن نصيبك يعلف كان جلاعسن عشق ناحية جماتسن نقي عافمد لجل بيسن نبض يعانو جقليسن النادسة جوابسن ناولين عرابة جرماتسن عود كي نروشن جنيسن عرفي جنالكن جوهرتسن نحريس يعاشق لنجن جيرسن نواحي عرفة جللفسن نبدي عانا جقليسن ناولين عرابة جرماتسن مركا سوغانتن واحد كومنت هاي لبدي قافي عمر داهر عبي ودغاي iyo tilcantii cumar macallin marka bal waxaan yiri suugaanta Soomaaliyeed de hak meel baa la dhigay suugaanta adigu waxaad ku biirin karaysid xaram iyo sumad iyo qurxo waxay tahayba ha ku biirisid xilkaasi saartid oo adeegay xilkaasi waayo abwaani weyn oo Umar Allah naxariisto Umar macallin in tilcantiisi tilantu sida ogtahay Maxamed Umar kaaga sheekeynay aad badan tahay in bal labadan qaafiyadna Umar daahir abdi dhigayna halkii uu dhigay bal labada macallin labadan iyo laba run ahaanta marka suugaan Soomaaliya laga sheekeynayo laba nin oo muxtare waa aan hontero rag wax soo saaray oo suugaanta halkii hore ay jirtay sida lagu yaqaanay maahin bal ha ka duudiyo si kale wax bay soo biiriyeen waayo de run ahaanta adduunka de waxun baa qofkii wax beeriyay waa san garanaysaa aan honterada muxtareyaasha bal adduun wax ku soo biiriyay noloshooda laga sheekeeyaa aad baan de waxaan tilcanta u soo qaatay in macallinka xustid iyo Umar daahir abdi isagna ku soo biiriyay labadan qaafidood marka qodobad aan baday sharaab la cabayo waxa ugu macaan musharraka meelaha ugu macaan bal labadani macallimiin musharralku waxay noqdaan noqoto bal isku jeegtid marka isku dar meelaha waxay noqotana bal suugaan ka sameeyay waan ka dhigtay adigu marka waxaan ka dhigay nuunkii caynkii waa labadii qaafido caadi ahayd tidcantii waka saddex qaafidood baa ka qaaday saddex qaafidood waan fahmay صح waan fahmay صح ورتو وفي عنده صح أو يعني أدنى دي هلو عصب أو بنان صح إن بحسو وواجب هذا قاعد السرتي وناكس انتهي مقرن لكن واحد على برتدعي أهري معنا هن سأنو فهمنه يعني وشيدة إن وسجان تن وليو ما صدموا وشيدة يكال سيدفتها إير إن دي نقول هذا قصة سدجن وآخرين نفدا عنبي كوج بيسن نمعي عو جيني قارسن نحل إي عرو جكارسن نعود عاشقة لجنا يرسن نبضي عام جقليسن ناولين عرابة جرماتسن وانكرت هاي حقا محايا دي كيفه وحويا horta waxa ugu bixi wuxuu u baahan yahay doodeeda iyo sidoo de xeerashii ula jaan qaadayo inanka waxa la yaab wanka dhalin yar horta hambaliyo wuxuu yiri laba nin oo culus ina bartankooga dagan raba oo Umar daahir abdi iyo Umar macallin nuur Umar macallin nuur oo
nin maaragtay anigu aan oran karo waa hormuud faca qalin leeyda qalin maalka fac walba wuxuu leeyahay hormuudkeega dad la tilmaamsado oo la bildaansado waxa weeyaan faca irimaalka ahaa ee ku tiirsanaya xafidaadda rag baa hormooda min raago ogaas ka bilow ilaa halka imika imanayso faca qalin leeyda wax qoray wuxuu qalin ku salaysan yahayna anu waxaan idhahdaa waxa uu hormood Omar Macalin Nuur waxa weeyaan dee waa nin kolka aad eegto dhanka suugaanta waa ustaad waa horseed dhanka dhaqanka waa horseed dhanka uriska iyo sheekooyinka waa horseed aniga waa macalinkaygii xagga dhaqanka si fiican aan garanaa waxa weeyaan in markan hortaba aan ahaa maaragtay layliga dadkii na soo jareeyay buu ahaa oo weliba ahaa nin faxal oo aanan qab lahayn laana qabku waa qofka qab kale waa qof dhaawac leh oo dhaawiciisa ku qarinaya laakiin qofka ku buuxo daasada buuxda ma dhawaaqayso anigu muddaan u ahaa arday xagga suugaanta arday ugama hayne xag kalan arday uga ahaa xagga suugaantuna dee igama maqnayne marka meel baan dee ku hamuumsanaa waxaan odhan karaa rag badan oo uu barbaariyey oo uu wax la qabto qoro oo maanta caalamiyaa jira waxaan ka xusayaa oon halkan ka salaamayaa cali muuse iyo rag badan oo maaragtay Umar Macalin u ahaa ayaa jiray kolka xagga suugaanteen maanta u joodna lasoo dhaqaaqana waxa weeyaan bahasha tudcanta la yidhaah dadku kolkay qorayaan horta irigaa kaa dhammaada dhibta ay leedahay maaragtay sida aad isku raaxraaxinayso iyo dheelitirka iyo miisaankuna dhibteedu leeyahay laakiin isaga waxaad moodaysay inay la tahay wax caadi horta ma buunbuuninayo kumana dheeraanayo waxa weeyaan waxay ahayd inuu agtiisa ka soo goranayo qaaday laakiin cidda kale ee wadada qaaday waxaan dareemayaa inay hawl badan gelisay laana tudcantu ma sahlano weli isagu tudcantiisu waxyaabahan kale nimanka arkay kaga duwan tahay marnaba wuxuu ilaaliyey xeerashii u yaalay suugaanta Soomaalida iyo godkii oo qaafiyadii Soomaaliga way wadataa hani dambe ee cusubna waa in uu isagu uu ku daray weliba isagu hufnaantiisa wuxuu odhanayay anigu kolkan dhaqankii muquurtay uman ka soo saaray waanan ifka baan keene waan iska lahayn buu odhan jiro waa kii odhanaya waa geesaas ali hal baa jabisayee hoogay hal cad baa jabisayee hoogay hal cad ay horar ku cun ee hoogay iyo waa god jiray buuri godkii baan soo qaaday godkaay wuxuu u dhigmaa waa nooleeyay waxa kale loo godkaay oo culays ahaan u dhigmaa gabayga kan faarax uu la joogaa culays وكاليت اللباد سوتها قافية صون وما يعني بارن ما culays ahaan wuxuu u dhigmaa gabayga heestiisuu soo qaado nafku shacayr saanyado seeran salaso oo hurdada seexan afka cunaa saarino sooman sababta aad leedaho garabna kaa sugi miyaad siisan sidriga maad gelin lahayd suuban sidaa geesaasku isku soo noqonaysa halkan igu soo noqon horta haddaan waxa weeyaan wuxuu yidhi anoo la didsan dareen dadkiisa caashaq haween siduu u daashay fadheen iyuu yar maaragtay kaftankii daawaanka ka dhexay horta waxaan ku hambalyaynayaa mustafe wadada cusub maaha in sida uu iskugu dayey sida uu iskugu hawlay yaan ku hambalyaynaya horta waayo annaguba waan samayno laakiin inaan Cumar iyo
labada cumar inaan maaragtay inaan isoo doontay midba goonidiisa oo dabaqa mooyaan abwaanada dhigayna sidaan baan u maleynayaa ya kolka waxaan ku horta ku hambaliyanayaa Mustafa inta aad eede saddexda qaafiyood aad waafajisay ya iyo sidcanta aad ku xidhay aan ku hambaliyanayaa si dadku ay nula fahmaan faarax waxa weeyaan wuxuu yiri nuxurka ay ka hadlayso ma sabab naftan marnabay ku jibaysan haye nimciyo cawo jeeni qaarsan ha xidhante nimciyo cawadiiba sidatadii cawadiiya nimcadiiba waan garsidata naxliya caro naxli iyo caro jikaarsan iska diidan waan gartay ya jikaaraysa naxliya caradii wixii oo dhan jikaaraysa dee in nabadii caano jilbaysan ma jiqlaysan ba nabadii caano sidaa u kan bayk saa imika aanu jiqlaysan ya sidaa imika aanu fadhiyo u jiqlaysan ba ee la fadhidu kulay cawda caashiqa عودي عاشقة لجنا يرسن مركز كلمة جنا يرسن وجبصري حق الدكتور مي جبصري على رجل أما تمشى يوتونتي ريحان يوتونتي أو جنا ير هذا هاي ما جنا يربيه كمان جنا يرسن يعني وتدعن تيبو يكون هاي جنايسن هاي نبادي عانو جقليسن بو جقليسن ها اسكتي سنبا هاي ما هي ناولين عربة هاي جرماناتسن إلى ضده إلى سعته ما ربطوا كلية جماعة ما ربطوا نفتني إني سعتبا يعني وناك وبكان في العشاء إني سعته ما ربطوا هاي سعته دعك حاجة آخر عصبك يا النور كان جلخصن الك وحويا عصبك وقلك ضاقه عقارك عدابه إذا اللي يجيبوا في مي وحاولت ما صم ورنه يسوي حقوق تلقى لي بانو مريم بلو يس يس هوكا هذا هم سيده uu sameeyay abwaanku wuxuu sameeyaa okay hay يعني arigu يعني waxaan filayaa inay furan tahay wili oo ay xidhiidh horta hadalka Umar baa qeexay marka hay horta ninku markuu fikir keeno uu dadaalo إن والدي جليا وهذا إنك إن النقصان يعني نقصان ما واحد هاي نعم عشان لكن وواحد روح بدن وحالين هاي ما أد بقى روح بدن ضد بعد كفر وأنا جي وكيف مرشد ضد نكنا عليها أنا وأنا تكدي أنا وهي كسر بحلا في عيا قلت في عيا هي صدق هي كافي ضد بانقاتي لبدا دقي برتن كوغنا وين دقي لبدا العروس برتن كودنا وين دقي وليه أمبلي وحويان بل وحاجبتها إن هاس